ayada oo dunida inteeda badan laga ciiday ayaa waxaa ka mid ahaa meelaha muslimiintu sida weyn uga ciideen magaalada Nairobi ee dalka Kenya. masaajidka Backroad oo ku yaala xaafadda Ingara ayaa waxaa soo buux dhaafiyay muslimiin tiro badan kuwaasi oo ku gutay salaada ciida kadib ayaa waxaa mikrofoonka la dhaxmarnay dadweynaha isugu soo baxay salaada ciida kuwaasi oo isugu tahniyadeynaya kullu caam wa antum bikhair iyo erayo kale. محمد waxaan salaamay dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan dadka aan ehelka nahay iyo dadka aan bahwadaagtana ee saxaafada iskula jirno waxaan si xoog leh u salaamayaa asxaabta CNA oo ugu horeeyay Cabdiweli waayeelka agaasimaha Cabdaakiin dhammaan waa salaamantiin anzal kama tagin akhyaarta CNA kulli waan salaamayaa waxa kale oo aan si xoog u salaamay ayagana ma taqaanay dadka ila dhashay dhammaan ma koobi karo waxaan si muxuha dhammaan anagana salaamaya muslimiinta meel kasta ee caalamka ka joogan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhair ilaahay nu gaarsiin maalinkeeda barwaaqo iyo bashbash Nairobi maanta si fiican looga ciiday maadaama maanta iska jireen roobab oo meelihii mataqaana lagu ciiday ay mataqaana biyo badan ay ka jireen haddana waxaan dareemaynaa farxad aad u weyn maadaama maanta mataqaana la ciiday soonka ilaahay mataqaana si wanaagsan oo barwaaqo inuu soo dhameeyay marka waxaan leeyahay insha Allah muslimiinta dhammaan hasi wadaan cibaadooyinkii wanaagsan ay soo wadeen يسن كدالنا سوى إن شاء الله إله نقدر رمضان كيسة كله عيد ذاك إن شاء الله برواقي بشوش وحنا ليه هاي مدرسة على مركز أجوكتان كد ذال إن شاء الله الله كعصية كد ذال إن شاء الله إن ما تغنى مركز تأثر مثلا عوادة وناسن وأن الإسلام دمانتين مبارك ضمان ومد الإسلام كأردن قارهان ومد الصوماليات وعلى عيد مبارك مركز أجوكتان تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال إلهي waxaan ka rajeynayaa ciidan ku xigta Soomaaliya iyo dalkeena iyo dadkeena oo nabad ah halka waxa ila jooga Yaasiin Ciise Wardheere iyo kooxdiisii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan in Ilaahay ciidan kale uu gaarsiiyo nabad barwaaqo iyo bashbash dalkeena Ilaahay nabad nooga dhigo Ilaahay idinkiisa assalaamu calaykum maanta waxaan ku ciidnay xaafadda Islii masaajidka waxaan hambaliyada ciid al-fitriga u diray dhammaan Soomaali meel kasta ay joogaan muslimiinta caalamka oo dhan waxaan leeyahay sanadkiisa anagoo caafimaad qabna iyo cumri qabna Ilaahay inuu na gaarsiiyo ilaahay maanta ciid mubaarak dhammaanteen muslimkoo dhammaanteen way ciideen farxad weeyaan wali soo dhaweeyay ma sha Allah ciid mubaarak ballaah ciid wanaagsan gaar ahaan familkayga asxaabtayda dhammaan maanta waa maalin ciid waan faraxsanahay ma sha Allah halkan waxaan hambaliyo ciid ugu dhammaan islaamka inta maanta ciidayso ما شاء الله حنا كل عام وانتم بخير. لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ومضاها مسلمين تجودهان قرهان جنسك الصومالي ملك السيتشوغان وحن الله عيدكم مبارك وسعيكم مشكور وصومكم مقبول إن شاء الله. عيد ذاك إلهي وحن الذين كبر يعرقها سيدكم مدى الصوماليين ka shaqeeya nabadaynta iyo dacwada geeska Afrika inuu Ilaahay idinku gaarsiiyo nabadgelyo iyo midnimo iyo horumar iyo iswaafaq meel kasta joogtaana Ilaahay ha idinku amaansado madaxda muslimiinta waxaan oo ugu horeyso madaxda dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa noqda madax u tura shacabkooda naasix u ah la tashada gaarsiiyo himiladii la idin igmaday ka dhabeeya ballantii aad Ilaahay hortiisa iyo ummadda Soomaaliya horteeda aad ka qaadeen kitaabka Qur'aankana aad gacanta u saarteen kuwa fuliya oo ka dhabeeya Ilaahay ha idinka dhigo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan madax iyo minjaba waxaan ugu baaqayaa walaalooba midooba khilaafka iska daaya ganacsatada Soomaaliyeed iyo aqoon-yahamiinta waddanka ka soo maqan wadamada dariska waa dhisteen wana loo baahan yahay inaad dhistaan oo maal gashataan meel kasta madaxad ka noqotaan Mareykanka aad ka noqotaan iyo meel walba laakiin waayagnimadiina ilbaxnimadiina dhaqaalihiina waddankiina asalka ah ee Soomaaliyeedna ha hilmaamina laana waddankii hadii lagu noqdo oo xoolaha la geeyo oo investment lagu sameeyo waxaan isleeyahay amni xumada iyo dhalinyarada tahriibaysa iyo kuwa sida xun loo programinayo waxaas oo dhan wuu yaraanaya waddankii ayaan la halmaamin asalka ha lagu soo noqdo hana la dhiso oo ha la maal geliyo waxaan leeyahay guuleysta waddankan Kenya oo hadda joognana waxaan leeyahay Ilaahay nabadgelyo iyo midnimo ha nagu siiyo muwaafaqo iyo horumarna Ilaahay ha siiyo waddankan xiriirka labada dawlad Soomaaliya iyo Kenya Ilaahay ha hagaajiyo ayaanta madow waa soo galay intaas baan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed
kastay joogaanba anigoo ah sayidka ummadda Soomaaliyeed ee ka shaqeeya dacwada iyo dib u heshiisiinta geeska Afrika. wadooyinka ayaa ahaa kuwo mashquula waxaana soo buux dhaafiyay waalidiin wata caruurta kuwaasi oo ku damaashaadaya goobaha cagaaran iyo meelaha caruurta lagu ciyaarsiiyo iyo waliba goobaha lagu cunteeyo. Si kastaba ha noqotee dalkani Kenya ayaa maalinta Arbacada ah waxaa loo asteeyay ciidda rasmiga ah taasi oo dalkuna uu noqon doono maalin fasaxa waxaana sidaasi ku dhawaaqay qaadiga guud ee dalka.